ururka wacyigelinta ka hortagga coronavirus ee ardayda dhigata jaamacadda Jigjiga oo iskooda isku hilqaamay ayaa waxay degmada Tuli Guuleed ee gobolka Faafan ay gaarsiiyeen qalab kala duwan oo loo adeegsado ka hortagga coronavirus-ka waxayna qalabkani ku wareejiyeen maamulka degmada Tuli Guuleed si maamulka ay ugu sii qaybiyaan bulshada danyarta ah ee aan awoodi karin inay iibsadaan. Gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed Mudane Guuleed Maxamed ayaana soo dhaweeyay dadaalada ay sameeyeen ardaydani. ardayda jaamacadda Jigjiga ee isku abaabushay isku xilqaamtay saaka waxayna soo gaarsiiyeen agabkii ka hortagga coronavirus-ka aan ka hortagi lahayn agabkaas oo agab fara badan oo jirikaamo koloriin waxay isugu jiraan. taa markaa waxaan leenahay ardaydan waxa way ma garanaysaayay iskood ardayda jaamacadda Jigjiga University Jigjiga ee isku abaabushay ee u dhalatay degmada Tuli Guuleed arrintan ay sameeyeen waa arrin anaga ahaan maamul ahaan aad noogu fiican waayo agab bayna soo gaarsiiyeen agabka iyaga oo iskood isku abaabulay iskoodna ka go'naansho u sameeyay iskoodna hantiinta isaga ururiyeen ka bacin nagu soo deeqay anaga ahaan marka waxaan leenahay haddaan maamul ahaan waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana wacyigelin waxay imagaysa ka degmo ahaanna wacyigelin fara badan ayay ka qabanayaan marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inoo yimaadiin maanta agabkan nagu wareejiyaan aad iyo aad buu maasan gudoomiye ayaa sidoo kalena ka hadlay dadaalada ay degmadu ka sameysay qaabkii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus-ka ka degmo ahaan run ahaantii kolley waxaa degmada ka jira ilaa 5 guddi baa ka jira degmada oo ka dhisan oo guddiyadaas oo waxa way ma garanaysaay meelo badan waxay moosaa u kala qaabilsan dadaalka aan ka geysanay annagu wacyigelinta haday tahay haday xagga agab tahay laftigeeda waxaa jira annagu degmo ahaan waxaan iskanno annagoo waxa way ma garanaysaa kamanid ahaan u tashanay ama degmo ahaan isku tashanay waxaan iskanno u soo iibsanay inaan samaysano maadaama oo waxa way ma garanaysaa xaggana dir dhawaan xad la leenahay xaggan kalena waxa imisa Oromia Kilil oo waxa imisa degmada Jinacsan ayana xad la leenahay dadkuna inta waxa imisa baabuurtuna ay ka imanayaan waxaan iskanno u soo iibsanay inaan sameeyno saacadii lagu baadhay waxa imisa qandhada oo ah 2 mid in anagu ka degmo ahaan soo iibsanay marka wacyigelintana dhammaan oo qabalayada waxay muganaysaa way wacdi gashan yihiin waana wacdi gelinaa ka hortagana waxay muganaysaa waxyaabo fara badan ka sameeynaa waayo santarada haday tahay guddiyo badan guddi hoosaad baa xataa ka sii dhisan ardaydan iskooda isku ilqaamay si doorkooda ay uga geystaan ka hortagga COVID-19 ayaana sheegay inay qalabkan ay gaarsiiyeen degmadani Kaseko sidoo kalena ay kaalin ka geysan doonaan wacyigelinta bulshada ee ka hortagga coronavirus-ka. waxaanu maanta bulshadeedan Soomaaliyeed si guud gaar ahaan degmada Tuli Guuleed aanu ku caawinay agab isugu jira jerkaanadii sanitizeradii alcoholski face maskiyadii iyo waxyaabahaas lagaga hortagayo marka waxyaabaha nagu kalifay waxa kamid ah degmada tani waxa ku taala waa marka koowaad waa meel cross border ah waxaana sidoo kale jooga barakacayaal aad u badan marka bulshadu maadaama hayntoodu yar tahay aqoontooduna ay yar tahay caalamka in badan aanay ku xidhneen baadiye ay degan yihiin ee noo kaliftay inaanu u keenno agabkan soona gaarsiino agabkan waxaa nooga muhiimsan wacyigelinta inaan u sheegno in ay kala fogaadaan distance ilaaliyaan qof qaba cudurkan uu taabto meel like biro kale ama meelo kale ama albaab ama daaqad ama gaari uu fuulayo muddadii uu fayraska durigu ku noolaan karay in ka badan ayuu ku noolaan karaa maxaan ku raahdaay cudurkan viruska coronavirus ama COVID-19 sadarteed waxaan bulshada ugu wacyigelinayaa oon xaggan u marnayaa inay faraha dhaqdaan goob kasta taaban marayaan meel kasta ay galayaan inaysan taabanin like albaabada daaqadaha iyo biraha iyo meelahaas oo dhan inay faraha ku dadaalaan distance social distance kala fogaanshaha bulshada ku dadaalaan degmada Tuli Guuleed ayaana diyaar garow ka sameysay qaabka ay uga hortagi lahayd faafista caabuqa coronavirus-ka.